aan idiin soo dhaweeyay wacan oo wanaagsan daawadayaal dhageystayaal asxaabtayda ku xiran facebookgayga samadoon sugowyare inta aadna gaarsiiseen follow ama laaga waad ku mahadsantihiin barnaamijka noo sii sheergareeya si dad badan oo usii gaaro annaguna aan ku horumarno intaas kadib maanta waxaan idiin wadaa sheeko yar oo ku saabsan ama macno yar oo ku saabsan ama mowduuc yar oo ku saabsan fahamka siyaasiga iyo siyaasadda fahanka siyaasadda iyo siyaasiga weeyaane waxaan ahay sugowyare waxaa jirta xikmad tidhaahda ama odhanaysa you understand you play only when you have performing waxaa kala duwan sida qofka uu haysto marka uu ama uu ka aaminsan yahay marka uu shaqada dibadda ka joogo iyo wejiga ay yeelan karto marka uu gudaha u galo shaqada dad badan oo siyaasiyiintu ay ugu muuqdheer yihiin waxa ay ku taamaan ama ay isu haystaan in ay noqon doonaan kuwa soo bandhigi doona qorshe howleed dadka raaligelinaya hase ahaatee marka ay fursadii ay ku taamayeen ay soo marta waxa ay u shaqeeyaan si ka fog sidii ay u haminayeen ama laga filinayay maxaa inaga qaldan ma siyaasadda inaga qaldan mise siyaasiga ayaa ah midka qaldan mise la odhan karaa ma jirto siyaasad ama ma jiro siyaasi ma la odhan karaase siyaasad cad oo inoo qeexani way jirtaaye siyaasiga ayaa dhaawacaya siyaasadda waxaa kale oo iyaduna u baahan fahan in aynu ogaanno arrin ah ma siyaasiga ayaa siyaasadda keena mase siyaasadda ayaa siyaasiga hagta oo keenta siyaasiyiintu marka ay bilaa camalku yihiin oo aanay talo haynin waxa ay dhaliilaan maamulka markaa jira ee mas-uulka ah ee talada haya waxaana yidhaahdaan ama ay soo jeediyaan fikrado ku salaysan sidii dawladdu wax u qaban lahayd shacabkuna way soo jiitaan hadalkooda ayagoo ka raadinayo soo jiidasho laakiin marka ay talada iyo xilkii ay doonayeen qabtaan waxa ay odhan jireen hala qabto ma fuliyaan oo ayagiibaa aamusa waxaanay la mid noqdaan sidii kuwii hore oo ay cambaarayn jireen oo ay dhaliili jireen oo wax ma qabtaan oo ay odhan jireen dadkuna ay ku fadeexeen jireen maxaa hadda ugu wacan isbeddelkaasi ma markii hore ayuu siyaasi ahaa mise markii uu xilka qabtay oo uu jagada ku fadhiistay ayuu siyaasi noqday mise marna siyaasi maaha ee waa danayste la isku fahmi la'yahay ma la odhan karaa asxaabteenna qaaliga ah qaybtii koowaad ee fahanka siyaasiga iyo siyaasadda halkaasi ayaynu ku joojinaynaa anigoo ah suguwyare ayaa idiin soo jeedinayay beejka follow gareeya asxaabtana usii sheer gareeya si aanu u soo badinno barnaamijyaadkaas waad mahadsantihiin salaamu calaykum